بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kusoo jirnay cashiradeenii aynu ku baranayna barnaamijka Adobe Illustrator. Casharkeena afraad maanta hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ku baran doonaa qaabka barnaamij ama document aad soo naqshadeysatay loo kaydiyo ama loo save gareeyo ayaynu ku baran doonaa ilaa dhowr qaab oo kala duwan. Marka casharkeena haddaynu bilowno marka ugu horreysa su'aasha aynu ka jawaabayno waxaa weeye intaynu wax u save gareynin purpose-ka ama ujeedka aynu wax u save gareynayna muxuu yahay. markaynu ujeedka fahanno kadib ayaynu qaabkan kala dooran doonaa. markaynu ujeedkeena aynu wax u kaydinayna aynu fahanno ayaynu saddexdan oo ugu muhiimsan badanka midkaynu rabno isticmaali doonaa. marka ugu horreysa save weeye waxa ugu horreysa aad arki doontaa savetan use when your document is brand new which didn't exist before. waxaad isticmaali doontaa marka barnaamijkaagan aad save gareynaysaa uu yahay wax aan horey u jirin oo mar horeba aan ku kaydsanan computerkaaga ku jirin oo hadda cusub oo hadda soo furatay ayaad save isticmaali doontaa. tusaale kale si aynu fahanno new aan dhahno barnaamij cusub aan soo furno create aan dhahno kadib meeshan aan wax ku samaysanay marka project baad sidaan u samaysato waxbaad naqshadeystay marka waxaad u baahan tahay inaad kaydiso mar walba uusan wax kuu kaydsanayn. haddaan title baan dhahno markaan soo dooranayno inaan soo saysayn meeshii laakiin waa laga rabaa inaad saxdo waxoogaa kasoo boodin aan title iyo waxaas kugu qor doonaa haddii kale saan buu sii wadi doonaa. marka mar walba halkaa yar waxaad uga jeedaa star ama xidig yar xidigtaa yar mar walba oo ay kuu qoran tahay waxaad u jeedaa inay shaygaagani waxay kuu sheegaysaa inuu wax aad save gareynin oo weli aadan kaydin uu jiro marka inaad kaydisa laga rabo. marka hore si aynu usoo sheegnay hadda qaybteenan u horeysa marka hore si aynu usoo sheegnay waxaynu isticmaali doonaa waxa ugu horreeya waxaa weeye save. marka saveta laba qaab waanu aadi karnaa. halkaas intaan aadno file waa documenti cusub oo aadan hore u kaydin baan dhahnay marka saveta la isticmaalayo file intaynu aadno ayaynu halkaa kasii tegi karnaa save ama shortcutkeedana waan isticmaali karnaa control s haddaynu dhahno inagoon halkaa tegin control s haddaan dhahno isla sidoo kale waxaa inoo soo bixi doonta meeshii saved ahayd haddaynu xaggan ka tagno file aan save dhahno isla meeshii oo kale ay inoo soo bixi doonta. marka halkani weeye halka muhiimkii marka meeshan file nameka ay ku qoranta waxaad ku qori doontaa magaca faylkaaga aad markaa ka shaqaynaysay aad ku qori doontaa. tusaale hadda poster aan iska dhahno poster markaynu dhahno meeshaas poster fara badan baa ku jira marka poster markaad dhahdo magacii halka aad ula baxdo halkana save as typeka waan arki doonaa waxyaabaha kala duwan yihiin. marka halkan waxaad ku qori doontaa typeka ayaad ka dooran doontaa. tusaale halkan waxaa ku jira Illustrator oo AI PDF EPS templates SVG dhammaan kuwani faylashan waa faylal wax laga bedeli karo oo markaa layers aqbalaya. marka qalbo mid kale dad PDF u baahan tahay labadaas ugu muhiimsan waxa la isticmaalo iyo sidoo kale kan saddexdaas kore inkastoo kan laftigiisu aad u muhiim yahay. marka labadaas laakiin badanka aad isticmaali kartaa AI si aad wax ugu bedesho iyo PDF labadaba wax ka bedel way ay ku suurtagali karaan. marka kadib markaad intaa dhamayso ayaad save oran doontaa. markaynu save gareyn hadda wuxuu kusii weydiin doonaa okay baad sii dhihi doontaa. markaad waa ujeedaa faylkeeni meeshii waa laga qaaday start ama xidigtii yarid waa laga qaaday sidoo kale magacii ayaan kusoo qoranay baa halka lagu qori doonaa. marka saveta waxaad isticmaali doontaa markuu documentkaagu uuna hore u jirin uu hadda aad samaysay uu cusub yahay markaad kaydinayso waxaad isticmaali doontaa savena labada qaab baad u aadi kartaa inaad file tagto ood halkaas save kasii tagto iyo inaad shortcutkeeda isticmaasho control plus s ah. marka qaabka labaad ee noogu xigay wax u save gareyn karnaa waxaa weeye inaan isticmaalo save as. save astan waxaa lagu yiri use when your document existed before but you want to change something but this type only support a file which has layers. waxay ka dhigan tahay wax kale ma aha waxaad save as isticmaali doontaa markuu documentigaaga uusan cusbayn ee uu horey u jiray laakiin si aad u baahan tahay inaad wax ka bedesho wax ka bedel inaad ku samayso aad u baahan tahay markaana save as baad isticmaali doontaa. su'aal isla kan hadda inoo jiray aan isticmaalayno oo mid hore inoogu save gareysna waa ujeedaa hadda haddaynu save dhahno kadib meeshii cusbadinimo geyn doona laakiin midka cusub isagu save haddaad dhahdo wuxuu ku geyn doonaa faylkii halkii baad ka dooran doontaa. markan maadaama uu hadda iminka haddaynu save dhahno safety marka way naga qarsantaa ma furro sababtoo inuu furnayn waxa weeye faylkan hore buu sii furnaa. marka safety iyadu halkan maray shaqeyso waxa weeye ama marka documentigaagu uu cusub yahay ama aad wax ka bedel ku samaynayso labada jeer bay shaqeyn kartaa laakiin haddii documentigaagu hore uu kugu save gareysnaa iyadu marka way ka xirmi doontaa. marka hadda save asta si aynu fahanno save as bin taginaa marka lesson 4 cashirkeena wuu inoo save gareysnaa waka halkaas aad u jeedaa. marka haddaynu u baahannahay isla keenan aynu wax ka bedel ku samayn inaynu qaab kale u save gareysano mar kale waxaynu samayn doonaa halkan aynu ka bedeli doonaa haddaynu lesson 5 ka dhigno marka waa ujeedaa hadda save baa la oran doonaa kadib waynu sii weyn doonaa okay baan dhahaynaa. marka hadda waxay ka dhigan tahay haddaynu aadno hadda meeshu wax noogu jiray aan halkan tagno marka waa ujeedaa meeshan
hadda laba fayl waa isla halkeenii fayle hore un laakiin wax ka bedel maadaama aan ku samaynay si cusub aynu u save garaysanay marka hadda kan lesson 4 haddaan ku dhufano waa keenii hore kanna waa isla keenii un laakiin wax ka bedel aan ku samaynay way marka save as tuna qaabkaas uu shaqeysa waa fayl hore kuugu jiray oo laakiin saad u baahan tahay wax ka bedel ku samayso marka si aynu isla fahanay save as cashirkaas qaabka uu shaqeeyo hadda su'aalo kale thumbnail-kan aan aadayna cashirkeenan kadib halkan waxa ku qoran cashirkii saddexaad oo kan aan u baahanay marka inaan wax ka bedel ku samayno cashirkii afraad ka dhigno su'aalo kale marka halkan aan bedelo aan ka dhigno cashirkii afraad halkan marka ciwaanka aan bedelo markaynu sidan u bedelo hadda faylkeenana already mar hore uu noo save garaysnaa thumbnail bay noogu sii qornaa haddaynu marka iminka isticmaalno save haddaynu isticmaalno isla kii hore ay noo jiroon baa isbedelkan lagu samaynaya marka inagu ma rabno keenii hore oo wax ka bedelkeenana uu gaari noo ahaadaan rabnaa isaguna markaynu noo save garaysmo oo maadaama kii hore cashirkii saddexaad kan cashirkii afraad aan ka dhignay mar walba halkan baad bedeli marka waxaa samayn doontaa save as baad isticmaali doontaa markaas si uusan kii hore isbedelku kaaga dhicin haddii kale laakiin save aad dhahdo kii hore unbaa isbedelka lagu samaynaya markaynu 04 ka dhigno waxaan samayn doonaa save baynu oran doonaa okay baan silaahayna kadib marka halkeenaan ku laabana marka meesha halkan marka waa kan isagana sidoo kale hadda kan waa kii hore kan waa kii hore haddaynu kan soo furno keenii hadda inoo furnaa buu soo furaya marka waa ujeedaa 04 buu ka dhigaya save asna qaabkaas loo isticmaalaa file hore kuugu jiray marka aad wax ka bedel ku samaynayso ee aad rabto inuu kanina mid cusub ku ahaado kaagi horena uu ku sii jiro ayaad save as isticmaali doontaa marka midka kale oo arkayno waxa way export as can say when you want to make your document a picture so badanka waa sawir un qoyow hore file wax laga bedeli kara bay lahaayeen laakiin export as kan marka isticmaalayso ogow waxaad ka dhigaysaa faylkaaga inuu sawir ahaado oo wax bedel isagana laguma samayn karo waayo sawirka wax bedel laguma sameeyo waad ogtahay marka qaabkaas oo kale marka isagana sidaan u samayno export as kan qaabkan u isticmaalo isaga png iyo jpeg buu isticmaali doonaa labadaasna waan kala fahmi doonaa hadda isaga sidaan u aadno waxaan samayn doonaa file intaan tagno kadib halkan export as baan tegaynaa markaynu halkaas aadno isagu wuxuuna siin doonaa faylal intii ka badan buuna siin doonaa marka kuwan inta ugu caansan la isticmaalo waa png-gaas iyo jpeg marka png-gu marka isagu saan u fahno png-gu marka u horeysa waxa weeye waa isaga halkan baad dooran doontaa magacii waa isla halkii oo kale halkana type filekaad kasoo dooran doontaa marka meeshan iyadana use artboard mar walba inaad isticmaasho isku day meeshaas tigta ay ku saarnaato mar walba waad ka qaadin marka hadda markaynu intaas u dhamayno export waan dhahaynaa kadib halkan uu kala weydiin doonaa color mode-ka haddii CMYK aan rabno ama RGB aan iska dhahan hada kadib okay baynu siilaan halkan sidoo kale iyadana waxaad ka buuxin doontaa resolution-ka kolba waxaad u baahan tahay markaas 300 markaas ka ahaado kadib inta markaad dhamaysaad okay oran doontaa marka hadda faylkeenan waxaan u save garaynay qaab sawir ahaan oo tusaale kale haddaan halkii ku laabano marka waa kan hadda qaabkan inoogu soo baxay waa sawir ahaan hadda sawir baynu isticmaalaynaa marka jpeg waxaad isticmaali doontaa qaabkaas marka aad u baahan tahay documentigaagu markaad dhamaystirto ee u baahan tahay inuu sawir ahaan uu kugu soo muuqdo haddii marka qaab kale si aan u fahno png-ga waxaan tegi doonaa loogadan kadib file export as png marka isaga loogooyinkii waxaasaa loo isticmaalaa si marka backgroundka dambe loogu jiro marka hadda png baan dooran doonaa halkaas tigta kuu soo dhanaato png macnaha waxay ka dhigan tahay badanka loogooyinkii waxaasaa loo isticmaalaa wixii aad u baahan tahay markaas inuusan kasoo dhex muuqanin waxaad marka aad samaynaysid backgroundka hadduusaad rabtid inuu kasoo dhex muuqanin marka mar walba saasaa marka loogooyinka loogu isticmaalaa png iyaga marka hadda okay aan dhahno halka marka hadda iska ilaaliya markaad png wax kusoo save garanayso faylka halkan transparent waa inuu ku ahaadaa laakiin hadda aad waad ka dhigto color buu samaysanaya isaga color cadiin samaysanaya xagga dambe ku samaysanaya adoo png ka soo dhigi xataa marka halkaas mar walba transparent ku doornaato kadib okay baan leenahay isla kana waxaan u save garanaynaa qaab jpeg si aad ila fahanto labada waan soo furi doonaa export jpeg baan ka dhigaynaa RGB ka dhig halkaas okay hadda waxaan u save garaynaa loogadina laba qaab mar walbana inaad loogooyinkaaga dhowr ka qaab kala duwan aad u save garaysid isku day mar png baan ka dhignay marna jpeg baan ka dhignay isla mar kale haddaynu file u baahanay inaan ka dhignan waxaan isticmaali doonaa iyadoo wax laga bedeli karo qaabkii baan aadi doonaa save as tahayd aan sheegaynay kadib halkan aad ka dooran doontaa save baad sii leedahay kadib marka okay marka saddexdaa qaabba mar walba inay kugu save garaysan tahay loogadaadu ayaa aad u muhiima marka haddaan soo furo marka waa kan marka labadii qaabba
qaabkan waa markii aynu soo save gareynay JPEG oo JPEG waa inay soo sheegnay background bu mar walba soo wadan doona oo samaysan doona marka waa ujeeda meeshii la dhigo lagama dhex arki karo backgroundkii wata laakiin kan meeshaad geysay waad ka dhex arki kartaa waayo waa kii PNG aan ku soo save gareynay oo filekan background male meeshaad rabtaad noo isticmaali kartaa markii isaga meeshaad rabtaad dhigto uu ka soo dhex muuqan doonaa marka qaabkaas u kala duwan yihiin PNG iyo JPEG iyaguna labadaasina qaabkaas u kala duwan yihiin marka dhowrka qaab ay kala duwan baa wax loo save gareeyaa mar walbana inaad ku dadaashay isku tay faylkaaga markaad intaad ku dhex jirto inaad Ctrl+S aad adeegsato gacantaadana bartid sababtoo waxay tahay wax ka dhumi doono ma jiro faylkaaga xogaa mararka qaarkood inuu computerku ka ciladooba ama ka jam garooba laga yaabaa marka mar walba wax qabanaysid Ctrl+S oo marka u horeysa inaad software save gareyso waayo Ctrl+S marka u horeysa ma shaqeynayso hadii aadan save gareynin shaygan laakiin marka dambe qaabka uu shaqeynaysa waxa way inay wixii uu ku kadayso qaab kala duwan wax loo save gareeyo halkaas inuu ku soo koobay casharkeena uga hadlaynay qayb badan baa dhidirashay subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik